السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys sideetiin xaaladeen ka warrama ah bina dhamaantiin wada fiicantiin meel walba joogtaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir videoga noo like gareen oo si share garee haddii aad hore nala joogteen waxa ku leenahay isku soo noqdo wanaagsan waxaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga quruxda badan leh oo aad nagu horeysid fiirsashadaada iyo energy-gaaga intaba maanta ay banaanka u socdaa aniga iyo hooyo ay wehelisa hooyo waxay leedahay isbitaal balan kale soo balantay u soconaa Uber baan sugayay oo meeshan aan marba ka hagayay inta Uber ka sugayeen waxaan sii marsanayay vitamin C syrup iyo kareenka qoraxda haddii aad banaan u baxaysid waa muhiim guys ilaa hadda waxaan la yaabanahay la fajacsanahay inay maanta tahay maalintii koowaad ee Ramadaanta caadiyan waxaan sameyn jiray isku diyaarin dhanka mentaliyan ah laakiin hadda waxaan dareemayaa inaanan juhdi badan siinin because waxay igu soo gashay Ramadaantu si dhaqsiya ah si aanan filaynin Ramadaantu waxay ka mid tahay bilaha ugu muhiimsan nolosheena siba haddaad doonaysid inaad isbedel samaysid ama aad caado cusub dhistid ama aad caado xun ka tagtid waxay doontaba ha ahaatee haddii aad noloshaada rabtid inaad isbedel haba yaraadee dhanku doonaha ku saabsan haddaad rabtid inaad samaysid waa bisha ugu habboon ee aad samaynaysid ama aad bilaabaysid caadooyinkaas dhammaantay waxaan dejisanaa goolal ama hadafyo isku mid ah bilowga bisha Ramadaan ciida kadibna waxaad moodaa inaan meesheedii ka bilownay soo isku day sanadkan goolasha aad dejisanaysid kaliya inaysan ku ekaanin bisha Ramadaan laakiin ay kuu noqoto caado aad noloshaada ku dabaqdid si sanadka dambe aad hadafyo iyo gool intaan ka sareeya aad uga samaysid insha Allah waxaan rajeynayaa inuu Ilaahay naga dhigo kuwa ka faa'iideysta bishan barakeysan ee Ramadaan daqiiqad walba ka mid ah hadafyo badan xaqiijiya buugaag badan akhriya kora maskaxiyan iyo caqliyanba so guys gaariga waa noo imaaday waana kana aniga iyo hooyo waa sii soconaa gabadhan darawalada ah waxay ahayd gabar aad u furfuran dabeecad fiican leh sheeko badan bashaashada actually dadkaas camal agtooda kama daalaysin ma ogtahay so intaa wadada sii soconay maba aanan dareemin finally waan imaanay isbitaalka guys isbitaalka wuxuu ku yaalaa Buganda Road Nakasero waxaa la dhahaa Platinum Hospital wuxuu ku fiican yahay qaybta lafaha so haddii aad Kampala ama aageeda degan tahay oo u baahan tahay isbitaal fiican oo lafaha ah waxaan kugula talinayaa inaad isbitaalkan timaadid bal waxa gaari dhooban waa la buuxa maanta waiting waxaan galnay iska dheeraaday inta wax sugaya waxaan arkay shimbiro aad u qurux badan oo cirka jooga shimbirihii baan iska duubtay hooyadii halkaan is sugaysaa finally waa galnay waxaan lahayn ballan oo physiotherapy ah so physiotherapy loo sameynayay hooyo alxamdulillah way noo soo hagaagtay si wanaagsan way noogu soo dhamaatay so guys isbitaalka waxaan ka soo dhamaanay xilligii afurka wax yar ka hor waana kan anagu soo ordayna jaamna waa soo galnay marka waxa ii suurtagali weyday inaan soo duubo maalinteeda inteeda dambe laakiin waxaan jeclaysaa inaan idinla wadaago suxuurtayda alarmiga wuxuu isoo ka celiyay 9:45 daqiiqo ama 3:45 daqiiqo sida hadba u taqaanid kadibna waatana gabadhiini oo hurdaysan waxaan u maleynayaa 2 saacadood mise 3 saacadood baa hurday marka zaaid baan u hurdaysnaa cabaar bay igu qaadatay inaan maaragta ama kaco ama aanbi iyo xasistaabsiiyo finally waa soo cadaysaday wajiga soo dhaqday waa soo weysaystay markii biyo i taabtay naagta hurdaysneed baba ihiba qosol iyo suuro iyo waxaan ka bixi waayay iyo ma aragtaba magaalada isku qalqaloocis waxaan diyaarsanaynaa suxuurteena suxuurta waxay ka kooban tahay ama waxaan ka sameynaynaa oats ama mushaalisa hadda u taqaanid mushaalid intay dabka ii saaran tahay waxaan diyaarsanaynaa green tea aniga iyo gabar walaashay soo jeedna actually so green tea waan diyaariyay mushaalida ay soo kortay saxanka ku shubtay kadib waxaan isticmaalayaa vanilla yogurt
بلينك باول استعمال جرى لكن بلينك واسو واي كاسن soo helay iyo waxaan isticmaalayaa chia seed qaado iyo bar iyo qaado looska shiidana kadibna waxaan isticmaalay moringada qaadada afkeeda hore baan isticmaalay markii qaadada saddex loo qaybay qayb kamid ah kadibna khudaar waxa ii taalay tufaax iyo orange so orange-da waa nooc waxay mashaalin ku cuni karayso half tufaax aan soo jarjaranay guys mashaalideeni ama suxuurteeni sidaan ku soo baxday waa suxuur aad wanaagsan ku dharjinaysa faa'iidooyin badan leh siiba ku anfacaysa siiba hadaad rabtid inaad saxataysid ama aad miisaan reedid intaad maaragtay sooman tahay sawaykana aniga salaad subax sugaya suxuuranaya alxamdulillah saas waxa la gaaray salaadii iska guday kadibna hurdadeedan ku laabtay deebac salaam